Bismillahirrahmanirrahim. Kula wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu dambeeyay warbixinada arrimaha caalamka. Warbixintan maanta waxay ku saabsan tahay saraakiisha ICE ee Mareykanka oo kaamarooyin loo xiri doono. Saraakiisha socdaalka federaalka ee laga diray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa dhawaan heli doona kaamarada jirka lagu xiro body cameras sida ay baahiyeen waaxda amniga ee gudaha Mareykanka DHS. Dhawaaqistan ayaa timi xilli ay dawladdu wajahayso caro xooggan oo ka dhalatay geerida bishii hore ee laba muwaadin oo Mareykan ah, Augusta Brady iyo Rainy Good, kadib markii ay kordheen saraakiisha federaalka ee socdaalka loo diray aagga Minneapolis, taas oo ka qayb ahayd olole adag oo lagu xakameeyo socdaalka. Laga bilaabo hadda waxaanu diraynaa kaamarada jirka lagu xirto dhammaan saraakiisha ka howlgala Minneapolis, ayay egas ku qortay Isniintii xogayaha DHS Kristen Noem. Waraha caafimaadka ee degmada Hennepin ayaa ku tilmaamay geerida Alex Brady ee 24 Janaayo inay tahay dil homicide ah. Ereyga homicide waxaa loola jeedaa qofka la dilay, mana aha in fal dambiyeed si toos ah loo sameeyay. Warbixintii Isniinta waraha caafimaadka ayaa sheegtay in Brady uu qabay dhaawacyo rasaas badan oo ay rideen hal amba in ka badan oo ka tirsan saraakiisha ammaanka. Waxaa kale oo lagu sheegay inuu ku geeriyooday qolka gargaarka degdega ah ee isbitaalka degmada Hennepin ee Minneapolis. Faahfaahin kale lagama bixin.